السلام عليكم كسو دواada saaxiibayaal barnaamijkeenan oon kusoo qaadanayno khulaaso kooban oon uga hadlayno aadaabta qofka muslimka ah looga baahan yahay si maalinlaah inuu ugu dhaqmo si wacan u dhageyso oo xifdi ducooyinka aan kusoo qaadanayno barnaamijkan gudihiisa lana wadaag asxaabtaada mahadsanid waxaan ku bilaabaynaa qofka muslimka ah markuu soo tooso aadaabta laga rabo qofka muslimka ah markuu hurdada ka soo kaco wuxuu akhrinayaa ducadan alxamdulilaahi alladii axyaanii bacda ma amaatanii wa ilayhi nashuur waxaa mahadsan allihii isoo nooleeyey geeri kadib ama allihii isoo kiciyey hurdo kadib xaggiisa ayaana loo wada noqonayaa kadibna firaashkii iyo wixii uu ku jiifay ayuu kala hagaajinayaa wuxuuna soo qabsanayaa caday wuxuuna aadayaa goob ku habboon wuuna cadaysanayaa rasuulkeena sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi asiwaaku mudahiratun lilfami mardaatun lirabbi cadaygu wuxuuna fiya afka waana raalli ahaansho alle aadaabu taxiya ama aadaabta salaanta qofka muslimka wuxuu salaamayaa qofka ugu horeeya uu arko qaraabadiisa ama dad kale wuxuuna ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rasuulkeena sala allahu calayhi wasallam waxaa laga wariyey can cabdullaahi bni camr radiallahu canhuma ana rajulan sa'ala nabiya sala allahu calayhi wasallam aya lislaamu khayr qaala tudcimu acaam watuqiru salaam calaa man carafta waman lam tucrif cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi allaha ka raalli ahaaday asagii iyo aabihiibe nin ayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyey islaamka keebaa ugu khayr badan wuxuu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam quudi oo salaan qofka taqaano iyo qofkaada aqooninba aadaabta gudashada xaajada markuu doonayo inuu guto xaajo wuxuu samaynayaa qofka muslimka ah sidan wuxuu iska dhigayaa dhammaan waxa ay ku qoran yihiin quraanka ama dikriga alle markuu galayo musqusha wuxuu ku hormarinayaa lugta bidixe wuxuuna akhrinayaa ducadan allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal khaba'ith allah waxaan ka magan galay shayaadiinta kuwooda labka ah iyo kuwooda dhidiga ah markuu guto xaajada wuxuu iskaga mayrayaa gacanta bidixe markuu iska mayro wuxuu gacmaha ku dhaqanayaa saabuun ama oomo markuu ka soo baxayo musqusha wuxuu akhrinayaa ducadan ghufraanaka aadaabta weyse qaadashada markaad weysaysanayso ku bilow bisinka biyaha yaryare oo ha ku xadgudbin markaad dhamayso akhri ducadan allahumma ijcalnii min at-tawaabiina wajcalnii min al-mutatahhiriina allow iga mid yeel kuwa toobadkeena allow iga mid yeel kuwa isdaahiriya aadaabta qaadashada ama quudashada cuntada qofka muslimka markuu doonayo inuu quuto cunto wuxuu u niyeysanayaa inuu ugu xoogeysto cibaadada cuntadana ma liidayo mana ceebeynayo abu hureyre allaha ka raalli ahaadee wuxuu yidhi macaaba nabiyi sallallahu عليه وسلم طعاما قد إن اشتهاه أكله وإلا أتركه نبي ولي ما آبين عنتو هدور أبو عني هدور ربنا وكتجي جري قفك مسلم كأمركم عنتو عنايه وحوك بالله يا بسنك هدوه المامن وحوليه هاي أما أو آخرنا يا بسم الله أوله وآخره وحونك عنايا مدكته وحونك عنايا ننكحته رسولك صلى الله عليه وسلم حيري يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي ويلو كبلو بسنك كنا عن مدكته كان عن ننكحته haddii uu bogo qofka muslimka ah cuntada wuxuu mudmuudsanayaa farihiisa wuxuuna ku duceysanayaa ducadan alxamdulilaahi alladii adcamanaa wasaqaanaa wajcalnaa muslimiina waxaa mahadsan allihiina quudiyey oo na waraabiyey oo naga dhigay muslimiin aadaabta xirashada dharka qofka muslimka ah markuu dharka xiranayo wuxuu akhrinayaa ducadan alxamdulilaahi alladii kasaanii hada athawb warazaqanihi min qayri xawli minii walaa quwa waxaa mahad leh allihii ii arad bixiyey dharkanna igu arsaaqay ayadoo aysan jirin xeelad iyo awood aan anigu u leeyahay aadaabta ka bixidda guriga qofka muslimka markuu guriga ka baxayo wuxuu akhrinayaa ducadii uu akhrin jiray nabigeena sallallahu calayhi wasallam ducadaas oo ahayd bismillaahi tawakkalnaa cala allaahi allahumma innaa nacuudu bika min an nazalla aw nudilla aw nadlama aw nudlima aw najhala aw yujhala calayna aadaabta wadada qofka muslimka ah markuu socdo wadada uma soconayo si kibir iyo isla weynan ay ku jirto arinta oo inooga digay nabigeena markuu lahaa man ta'adama fi nafsihi aw ikhtaala fi mashihi laqiya Allahu alayhi qadban qofka isla weynaada naftiisa oo kibir socod sameeyo alla ayuu la kulmayaa asoo loo xanaaqsan yahay qofka muslimka ah wuxuu wadada u marayaa si aadaab leh wuxuuna salaamayaa dadka muslimiinta ah alla wuxuu yiri وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هدي لإذن كسلام سلام كسلام متكسي وناكسن أما كعلية إسلعيدي آدابت وحبر الشذا رسولك صلى الله عليه وسلم حيري طلب العلم فريضة على كل مسلم رادين علمك وحواجك يهي مسلم كستا علمك ونور نور كان مقاته قف مجدي معسيك جرو آدابت صاحبتني مضى صاحبك نولشي أنه حكولي هاي سامين وين
rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri almaru ala diini khaliilihi falyunzir ahadukum man yukhalil qofku wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ee ha iska fiiriyo qof walba qofku saaxiibka dhiganayo ducada raacidda gaadiidka subhana alladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun waxa eeb iyo xumaanba ka nasahan allihii noo sakhiray ama noo fudeydiyay gaadiidkan annagoo ahayn kuwa awood u leh annaguna waxaan nahay kuwa u laabanayo dhanka alle aadaabta masaajidka qofka muslimka ah wuxuu galayaa masaajidka asoo daahir ah wuxuuna ku bilaabayaa lugta midig wuxuuna akhrinayaa ducada masjidka oo ah allahumma iftah li abwaaba rahmatika allow ii fur albaabada raxmadaada marka uu ka baxayo masaajidka wuxuu ku duceysanayaa allahumma inni as'aluka min fadlika allow waxaan ku weydiisanayaa fadligaaga ama risqigaaga aadaabta gelida guriga markuu qofka muslimka ah soo dhameysto howlihiisa oo uu ku soo laabanayo gurigiisa wuxuu si wanaagsan u garaacayaa albaabka markuu galaayana wuxuu qabsanayaa bisinka aadaabta hurdada cishaha markuu tukado oo uu casheeyo qofka muslimka wuxuu isku diyaarinayaa hurdo wuxuuna akhrisanayaa ducada hurdada oo ah bismika allahumma amuutu wa ahya allow magacaaga ayaan ku seexanayaa kuna soo toosayaa waxaan ka soo bilownay hurdada markuu ka soo kaco qofka muslimka ah waxaana soo maray maalinka aadaabta oo ku dhaqmi lahaa waxaan ku soo gabagabeynay asoo seexanayo qofka muslimka ah waana nolosha qofka muslimka inta ay ka kooban tahay wabillahi